haddaba quraanku wuxuu noo tilmaamay dadka inta qaybeeda u kala baxayaan intaas qaybood markaan sheegno waxa la rabaa marka adoo cidna aan u daneyneynin adoo intaad isqiimayso qaybta ugu fiican inaad ikhtiyaarka ku doorato waxa ama la iska abaal marinayo aakhiro ama la isku ciqaabayo waa doorashada oo qofku doorashada haduu wanaajiyo oo wax wanaagsan uu doorto oo khayr ah inuu waxaas wanaagsan doortay ayuu ku mahadsan yahay lagana thawaabinaya haduu baadil iyo xumaan uu doortana inuu baadil iyo xumaan doortay ayaa lagu ciqaabaya ilaahay haduu rabo dadka kulligood iimaanka wada siin laha saas ilaahay wuxuu leeyahay walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jamii'an haduu ilaahay doono waxa rumayn laha dhulka dadka joogo dhan way rumayn lahaayeen ilaan iimaankan ilaahay baa bixiya qofku rabo qalbigiisa ku tuura wax lacag lagu soo gadanayo ma iimaanka qofku ilaahay la jeclaado oo ilaahay uu raali uga noqdo inuu mu'min noqdo ayaa la siiyaa walaakin allaha habbaba ilaykum al-iimaana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني إلهي بقى يعني إذن كقرحي قلبي يعني قلبك وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إلهي بقى كالتيادة قفك يا قلبك بمعنى قلبك هتبدنا على اللوجيدية مثلا قفك دو إلهي جعل هذا يعني قلبك واسد مثلا طلبة أما الدشك أو كلا هتبدنا على اللو آدينايو هتدو قفي عنه يهي إلهي وحوق آدينايا أو قلبك وجعليسينايا نورك إيمانك إيه إسلام ماذا هدو قفحنو يهينا لنا حماتها أي قلبك سلو جيدنايا مرك إلهي دور بدك المؤمن يكرر لها لكن بدك وحوق داي أيوه إلى اختيار كدورتان ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هدان دون إلهي وحوري بدك ودو حانسين لهن أو قيبين لهن هنونك هدي مرك هنون بدك الله قيبيو wax lagu abaal mariyaa la rabaaye maxaa lagu abaal marin lahaa leeyahay waxaad kasbatay ma ah waa laga iska siiyay laakiin adiga ilaahay wuxuu sameeyay qofka bini aadamka yaa wuxuu dhex geliyay si hadan misaal yar u soo koobno dadku ay fahmaan mobiladeenan oo kale waxay leeyihiin sim 1 iyo sim 2 mesela laba sim haduu qaado sim 1 iyo sim 2 gaas qof walba waxa ku jira sim 1 iyo sim 2 oo ah midna waa xumaan yaa ka buuxda midna fiicnaan ayaa ka buuxda adaa marka mobilkii inaad daarto oo kii aad online ka dhigi lahayd adaa gacantaada ku hayst hadaad xumaatada xaqeeda aado waxa daaranaysa kii xumaa kaasa ku shaqeynay marka kii khayrkan uu ka dansananaay saasa ilaahay intuu dhaartay suuradan washamsi wadduhaaha uu dhaartay washamsi wadduhaaha baan ku dhaartay wal qamar idha talaaha ilaa laga gaaro wa nafsin wama sawaaha nafti iyo allahi ekeeyay ayaan ku dhaartay jawaabti waatana على كده فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفتي يا حبيبي فألهمها إلهي وحكو إلهامي فجورها وتقواها في قف كيبا الله بضيبا ويكون حجران بمعنى وحال هذا الاستعداد وحودي يرسيها هذه الله دار مطورك وفجورها فجريمة هذه الله شده ولا تربيين وايو وقف حن أو نقضه وأخلاق ذي كلمته وحالف عنانا يا حماتذا ساس إلهي وحوري دتك حماتذا سمايا قلبكooda waxa uu madoobaday si kolba dambigi ay galayeen dhibic madow loogu dhibcinay ya qalbigo dhan madoobaaday kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun waxay kasbanayeen ayaa qalbigooda la madoobaaday qofka markuu qalbiga ka madoobaadana wixii wanaag ahaa ee macruufka ahaana xumaan uu la noqonaya wixii xumaan ahaydna fiicnaan uu la noqonaya maxay qalbigiisa ayaa saas noqday qofka mu'minka ahna wa taqwaha ayuu qaadanayaayo waa qof taqi ah marka labadaba insaanku ku jiraan nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo yar oo ari la jooga yay malaa'igu imaadeen kitubada siirada aad ku aragteen xaadithatu shaqq sadri dhacdadii oo nabiga laabtiisa la dilaacinay soo ari la jooga oo yar oo isla joogan wiilashii ay yaani xalimad saadiya qoyskeedii ahaa oo ariga isla raacayeen maqasha yaa niman dhar cad cad qaba imaadeen way qabteen way seexiyeen wiilashii kale way carreen markay arkeen ninkan wiilkoodii oo la qabtay si ay reerka ugu soo sheegaan reerkii u soo sheegay wuxuu walaalkii qurashiga ahaa maanta niman baa u imaaday oo ayagoo jiifiye waxay ku sameeyeen ma garanayne ayaan ka soo cararnay reerkii baa soo baxay oo markaasay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo soo kacay oo waxoogaa yaani ay ka muuqato naxdin ay ka muuqato ayay ka hor imaadeen markaasay weydiiyeen maxaa kugu dhacayo markaasuu niman caadon baa iga qabtay waxay ugu sameeyeen ma garanayo maxay ku sameeyeen xaadithatu shaqq sadri laabtiisay dilaaciyeen markay dilaaciyeen waxay ka bixiyeen
وحمدوا وجودها كجري كسارين مركي وحي وكسو دقي أو دم بأيوه حوري وحاسي وحوقها ذلك حظ الشيطان مني يعني الشيطان ماله أما يوص واصل لها أما حمان كسو قل لها وباللي يجيب بحيبه ما يزمزم بالله قد قي كل وحلقة وضع دق النبي وضن وضع خير لكن النجا بلا اسوي دين يي ملاعيق قلين كسم يسوي كبحسي مجرته وحي وين دحفر يعني مركا حين دحفر فألهمها فجورها وتقواها الله ديبا قفك مركا هدي ومسات كسو حرمه وعلماء كأجد وهذا وقرآن كأوبرتو وعديو وإيمانك سكر الله قاضي لأن إيمانك أكتينه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وتليل هذا مركا قفك وتقواها أيون نقنايا هدي واحد تربية لوايو أما أسوي تربية وديدو أو إلهي كعبسون وايو وحنا نقنايا متك فاجر كأه ووحى وسمينا الله يابي سؤال قفك نكو حاسمينا يعني صدوعها ما إلهي كما عبسنا محاكنا وحن ينكحشون وحده وحوين كلا يعني سمين لهين يا قف عادي وحيسكرتها قف عادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفك مؤمن كاي وقفك منافقة عمل كسي كليين وحى سمين هايان قفك مؤمن كان دنبك هدو قالوا وحول من جاي سيدي بور كسو دمي سو كلا سيدو وقع عبسنا يعني محد الدنبابتي لأنه بن آدم والدنبابي كرا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي كوا كلنا وشياطين ولا لا نقضينا يعني ما حسوسنا إن يصور نقضان لكن قفك مؤمن كمرك يدب وكدعو يعني والولاية سيدي بورك سو دنتي أو كلا يدم بجليه قفك منافق هنا وحال الدخسي كركي سفولي أو يسكدوا لي وح أوجد وانتهى مال الدم بيجوا سميناي مركا يعني سلاسة الله والشيء مركا إن قفك ودلالة يا لبي دتكم مركا حيوك لبحة ينسد عقيبون سورة البقرة باللوجة هذا من سوء آخر القرآن ما كسر بحنا هنا سورة البقرة باللوجة هذا وحلقت المامي كتاب القرآن كالله الله يسد إلى أسود الجي قيبت أوه الرئيس مركب وحال هذا المؤمنون أيالي هذا المؤمنون قيبت كحيت وحال هذا الكافرون قيبت صدحاتنا وحال هذا المنافقون صدح هذا السورة باللوجة هذا لقول شيء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قيبت سبحانه هذا المؤمنون ومؤمنين تلماموضا محاكم ذا ويبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لم بركوا وكاسمرك المؤمنون الله طيب تكحلت بحال هذا ويديد المؤمنين توحي الرميان أيضا أنكم مجرنوا إذا كجرنا ما ينقرصننا برنامج ليسوا استاجين وحده أنه مربنا وحنا شيء إنسان مقعد كواس وحال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يعني كواس وحال لي هل كاس يكبحين وحال هذا أبو حشيبته هذا الأشياء واسكمت قلب جود إلهي الدبول محيلي أيان ديار أحين إلهي وحوه هنونيا قفك أسرع قلادين الهنونيو قفك أسرع حماتة آذنا حماتة بالوصي وضع ساس القرآن كنوش إلهي وحول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يعني قفك وناك ربا إلهي وناك سؤوك المينا يا أو سينا يا قفك حماتة آذنا قل من كان في الضلالة فليمدده الرحمن مدا قفك بعض النماء آذنا إلهي أكر لي بعض النماء محايا أساقات دورتي اختيارك سوق دورتي كواسنا مركا وقايب تلبات وحال إذا كفروا سواء عليهم قيبك لو حاجر تكواس كدن بيسة ولا يري ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بالقرآن سوق دورتك العضينا فيه وحال سوق قبرها ميسان مجرد قفك وحال ربا مركا إنه نقض قف مؤمن وإلهي ويكيري أولئك هم المؤمنون حقا مؤمن طبعا ووحي الله دري أقلاضي والله قرت أما إنه نقض أولئك هم الكافرون حقا وكو قالوا لي قال لماذا سنة طبعا كتاب حقا اللي لبداس waa laba koox oo marka waaweyn waxa u dhaxeeya marka labadaas kooxood koox saddexaad oo markii si loo fiiriyo yaani waxay ku dhex jiraan munaafiqiin aliyada munaafiqiin xagee laga helaa xagee joogan munaafiqiintu waxay joogan muslimiinta ku dhex jiraan mu'miniinta ku dhex jiraan ayagu se
ما أها يعني أفكوا ويكشاجايان لكن هبدقن كودو ما أها ساس إلهي وحوري أيوة حيدايان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي دايان هذا إلهي بكن في حوري وما هم بمؤمنين وقت إيمانك حوق معه ويقين يا قلبي شاغا شما مؤمنان أهي ورمدي نجوك ما يوان أهي إلا وإلا وسيادكو تاي مركا أبتر ما متي إيدي كار ما مؤمن ماذو كار لقوسنا أو فهمت أبي بوحسد ما شاكلو هاي تاي أركان الإيمان أركان الإسلام دين وحلا إلى هذا يعني أو إن الرماية أي تاي أو إن الوعمل فلا أي تاي أيام ماشي عن تعالى هذا مركا لما مدو مكوفرا إن هتسيب بقى أضاع عدكو قصبي سي سنجرين قلعته أو ترى هذا دين إلهي سيد إلهي أسود دجي أيان رال أوعي وقرآنكم التلمامي وللمؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إن المؤمنين هذا الكود وذكر أفرا ملا وإن إدهان سمعنا وأطعنا وأن أقولاني سيد إن إدهان بأفرا كاس وامد مد كان كلامك أو اللي يري ما مؤمن معها وحلم ذا مثال مكان صوت وينه حروف حاجة الصور ذاك عربي مركي حروف تجايدة جيمك يا حاذا يا خاضو حاجة صورك مركي لا صورها يو اسكو سيبا الله صورها اسكو سيبا الله قرأ لكن waxay ku duwan yihiin jiimkuna dhibic buu hoos ku leeyahay oo inuu hoos dhibic ku leeyahay jiim ku yahay khaaduna waxay khaa ku tahay inay kor dhibic ku leedahay hadii dhibcahaas laga wada bixiyo saddexdooda maxay noqonayaan xabay noqonayaan saddexdoodaba hadii dhibic baan meesha la saarin saddex oo meesha aan taalay noqonayaan si marka saddex xaraf ay arintu u noqoto mid dhibic hoos laga siiyay marka hadaad aragto mid dhibic hoos ku leh kaas xamiya maya waxa la yiraahdaa jiima la yiraahdaa kan hoosta ku leh kan korka ku lehna waxa la yiraahdaa khaa la yiraahdaa ka aan korna ku lahayn hoosna aan ku lahayn waxa la yiraahdaa ha maxay ha ku tahay marka haadu waxay ha ku tahay dhibic la'aanta hada marka saddexdii qaybood aan sheegno marka جيم من الجمال كسو قادو قروحدا iyo qofkii ogolaaday Allah abuuray inuu caabudo waa muuminiinta jiim khana waa khata waa wax gafsan oo Ilaahiga abuuray diiday oo yiri mar rumayneen Ilaahay waa gaalada ayagana xaba ku soo haray marka xagan muxuu yahay marka xagan waa munaafiq jiimna ma aha khana ma aha quraanku muxuu marka mudabdabina bayna dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai yani munaafiqu kana ma aha كنا معه ومال ودحيس دحدو كجرا منافق على دهكاس بريغي هور النبي صلى الله عليه وسلم خليغيسي way jireen munaafiqiintu waxa madax u ahaan jiray nin la yaqaan oo leeyahay Abdullah bin Ubay ibn Salul ayaa madax u ahaan jiray Madiina joogeen way isqarinayeen munaafiqiin al jiray quraanka soo digi jiray munaafiqiintaas marka munaafiqnimo maxaa ka dhigay muxuu munaafiq qofkan u noqday qof munaafiq wuxuu u noqdaa wax asaga gudihiisa ku jira oo uusan muujisan karin oo uu rabo sabab ay ku noqotaa nifaaqa ninkan oday hadaan tilmaamayni wuxuu munaafiq ku noqday Madiina waxa deganaa laba reer oo la yiraahdo Aws iyo Khazraj way isdagaaleen muddo dagaalamayeen markay muddo dagaalameen ayay waxay war dagaalka intaan iska dayno aan heshiino madax aan samaysano waxay waayaa madax ka dhiganaa waxaad ka dhiganaysaan Abdullah bin Ubay ku heshiiyeen asoo taajki loo tulaayo oo madaxnimada loo diyaarinayo aan nabiga sallallahu alayhi wasallam imaaday oo soo hijrooday nabi meel uu imaaday ma cid kala ka hadli karto u soo dhawaan karta dadkii oo dhan nabiga ay raaceen asaga hogaamiye uu noqday marka ninkan wuxuu yiri marka ninka sababta kuugu noqday ee ku gafiyay inaad madax noqoto dadkiina ka kaxaystay oo dadkii ka raaceen ninkaas miyaa dantaada ka shaqeeyay dantaadii meesha waad ku gaftay afkana ka ogolow oo iska ogolow inaad la ilaaha illa allah iska tiraadid oo afkaad ka dhaadid laakiin gudaha marna ha ka rumaynin inta lugoyn kartana lugo markaas intu lugoyn karay waad artay waa inta dhacda ah ee uu sameeyay ninkaas oo nabigu ku dhibay yaani intu lugoyn karay mara waxa dhacday Quraysh warqad u soo dirtay markaas waxa leeyahay Abdullah ibn Ubay waan maqalay inaad soo dhaweyseen ninka anaga naga soo baxsaday hadaba waxaad samaysaan ama ninkaas iska soo eriya ama asaga iyo macal idinkaba waan idin la dagaalaynaa warqadii Abdullah markii loo keenay wuxuu bilaabay marka inuu dadkii reer Madiina kala saara marka oo yiraahdo Quraysh ba warqad ii soo dirtay dagaal bay inagu soo wadaan waxay leeyihiin ama ninkaas iska soo eriya ama ninkaas iyo macal idinkaba dagaal ku soo qaadaynaa ee aan isdiyaarino nabi sallallahu alayhi wasallam markii ayuu maqlay wuu u yeeray marka si wuxuu la hadlay luqadii uu fahmay ayuu kula hadlay wuxuu ku yiri Abdullah
haddii magaalada madiina dagaal uu ka dhaco horta waxaad ogaataa waxa dagaalami ee isku dhimani waa wiilashiini aws iyo khasraj waa nima reer madiina ah kuwa xagga jooga iyo kuwa xagga jooga inta aad marka isku dhameyn lahayd ilmahaagi waxaas iska daa maxay yeelay maxay kugu goodeen waa in la dagaalayna Soomaa hadii wixii ayagu ay sameyn lahayn ka war adigu aad sii sameys maxad faa'iiday maxay ka qaadi lahayn maxay kugu sameyn lahayn soo dagaalun ma soo dadka in la dilo ma hadaa dhawayseen dadkaas ii dilin ana isdilaya marka waxba ma faa'iideynin bas wuu fahmay marka wuxuu bas waan joojiyay kuma jiro يعني كل بدي مركز دمهر وحوق جاري دين الإسلام كشرف دين عرض أمد أيال الرسايا وحوجان وقصر رأي وقر رأي رسولك صلى الله عليه وسلم قيس كي رسولك أيوه حور كألف بان وحوق ألف أنا وحكي معه وحور رباطتك إنه كالسوني دي أي كوك بين النبي إنه كبابي أو يلاده إذا أعطوك عنان كان يدين كوك رأي بالقيس كي سفيرية وحي سمايين هالكاس وجدد أودن بيسان أي تهي دومينت الدين الإسلام كو قيادة مهجان كالدين أو النبي صلى الله عليه وسلم إنه حلقة الشيوة مركاسو حديثك أو حديث الإفك جبانتي أيو ألفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقاد وحماره ومسادك استاغو يراهدو قف إذن كي إذن كمدعا أو نبكيس وغيرك يقويسك وسوغاري يا إيجي علنايا والله إيلكي وخير وحانا هين إنا نكو أغينا يا إيجي قبنايا markaas Sa'ad bin Mu'adh wuxuu ana ka qabanay rasuulka Ilaahay hadii uu yahay reerkanaga haduu reerkan kale yahayna adaan amraysid markaas Usayd bin Hudayra u jawaabay ma reerkanagu yahay waxaan laga qaadi karo adiga fidna ka dhici gaartay waa la kala qabooji almuhim yani kaas wuxuu munaafiq ku noqday xukun uu rabay inuu qabto ayuu waayay go'aan wuxuu ku gaaray marka inuu munaafiq noqdo barigaas marka munaafiqiintu wax yar bay ahaayeen waxa ka badnaa mu'miniinta معناه حق هجانك يحكمك مركي اللي هذا وح حكم جري دتك الصالحين دتك وناقسن دتك الدين تكريه لا أيام مضحها لكن مع الأسف إنك محين نقول عالم الإسلام كان فيرنه استعمار كي مركو إن قبصلي أو عالم الإسلام يعني للجميستي أو مسلمين تو استعمار كي أي لد قالنا ورنول كان نوجبح مركو أركينه سنحوك وهين كرين يسكب حي لكن حسمي قوانين تيسي يوحيسي أو صيدا ذي يوحي نوغو دافاي كو انغا وحو idinka idinku ogaay halka ka sii wada ani waa baxay markaas waxa dhacday marka meeshii midaan la isgagabin laha bariga hore oo hoos ba gaarada laga jiray la dhihi jiray hadda waaba lagu faanaad markaas wadankan wuxuu noqday siyaasad markii doorasho la galaayo waxyaabaha qofka kor u qaada yani sumcadiisa oo hal igu doorto uu leeyahay wuxuu ku soo daraaya markuu rabo dadka inuu u khudbeeyo yiraahdo ana istaahilay hal ay doorto inuu dawladaha oo mid kamida dawladaha gaalada mid kamida inuu isku nabo oo yiraahdo aniga hadaad i doorataan ma yogtiin horta haye ani Mareykanka ay wato ani Ingiriiska ay wato oo markaas aan idhaahdo war markii lagu wadanaadi baabuur maatay adi baabuurka la wataa soo qof bin aadam ma tihido oo aqal sal ugu wadan kara adiga goorma la isku ogaa in la iswato waxa la isku ogaa in yani la noqdo xor yani aan loo dhaxaynin qofkan iyo wadankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa la isku ogaaye goormaan isku ogeyn dad aan inaga ahayn in ay madax inaga dhigaan ama ay quraanka soomuuna tilmaam munaafiqiinta ilaahay wuxuu yiri ayabtaquna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a ma sharaf bay waxay ka doonayaan kuwa ay wax sharaf laan had midaan kuwa oo aan ilaahay bar rumaysneen oo istijaa iyo tahaara iyo salaad iyo weysaba shaqo ku lahayn qofkii wax ka sii doona ka waran oo yiraahdo anu kaasa wax iga dhigaya afmaamay waxa dhaana بال waxaa jirtay la suul goys bal yaado oo badagteediyo afmaamay waxa la yiraahdaa abay gudo yaaldaa waxbay gudaa carruurta lagu cabsiyaa waxbay gudaayeen ku gudinaa lahaa ko afay marka carruurta kamid inay waxba gudaynin markaas wuxuu abay guday adiyo ma gudinii ay gudaas abay guday wuxuu adaan gudneen yaad gudi warta marna qof asay ciisaan lahayn oo ilaahay abuurayba aan u sujuudaynin oo aan caabudaynin oo aan tahaara qaadanaynin cidii sharaf baan ka doonay tiraada way ku lugu aysan marka waxa la rabaa dadku saddex bay u kala baxeen ulaa'ika hum mu'minuna haqqan qof mu'min maxaa la yiraahdaa al-iimaan arkaan iimaan waa taqaan islaamnimo waa taqaan islaamka aan rabno marka waa islaam sidee marka islaamku wuxuu yahay sidii ilaahay quraanka uu ku tilmaamay soo dhameystiran ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam inuu tagay oo ilaahay uu soo deji al-yawma akmaltu lakum diinakum sidii uu ahaa iyo sida hadda laga dhigay isma laha
sidii uu ahaan jiray oo kulli aan ku wada qanacsannahay oo cid gaar ula aysan jirin oo islaamkeennii ah ayaan wax yar tusaale iyo tisfoon ka siinaya kaas waxay tahay islaamku shantii islaam markii la yiraahdo udkur arkaan al-islaam markii la yiraahdo ilmaheena dugsiga quraanka dhigta iyo ibtidaa'iga ayaan u dhignaa arkaanul islaami khamsatun ayaa la yiraahdaa fahamkaas marka arkaanul islaam khamsatun in la sharxo tiir horta maxaa la tiir hadda mesela masaajidkeena tiirar ayuu leeyahay ama guryaheena tiirar ayay leeyihiin haddaad mesela soo qaado dhulkii baad haysataa aad guriga ku dhisan lahayd markaasaa waxaad ka taagtaagtay tiirar dhowr tiir baa kuu taagan tiirar baa kuu taagan ijaarka ay dhibay waxaad dhahaysaa ijaarkan wubay dhibay bishan soo socota waa inaanan ijaar ku sii jirin oo maxaa sameeyay guri baan dhistay hay guriga soo baxay soo tus afar tiir ama shan tiir oo meel qoqotoma ayaa lagu keenay waxa waa ka gurigaan dhistay gurigaas ma ku soo guuri kartaa oo ma dhigi kartaa sariiraha la soo raro carruurta la soo raro oo maxaa jira tiirarka mu jeedaan miya tiirar ay taagan aniga tiirarku gurigii ma aha laakiin gurigu tiir la'aan ma taagnaanayo tiirku gurigu celiyaa laakiin tiirarka kaligood gurigii ma aha هذا مثلا إسلام كسؤال لما دين بني الإسلام محل بني الإسلام على خمس في رحل الإسلام كوحالو كردسي وحالو كردسي معناه هو تيرك وحنين بجرة بني الإسلام والإسلام كوحالو كردسي على خمس شن أيالو كردسي شنت وحاوه الرأي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيدك وأساسك قولي مركز لجيحة أنت لجيحه أساس لو مثلا يو أنت دحان لو جرو يشمين دو يوحلوش شو يعني أساس كاللوجيحة توحيد كمرك أساس كي واي مرك لا إله إلا الله محمد رسول الله وأساس كي جريء شنتي مركي مت أساس كان كدينا محا صهري أفر صهرتي أفرتي تير مت حلقة ميكو لبو صدح أفر كي شناتنا وكأي كنت أجيهن وتوحيد كوا اللي هدان توحيد كاللقطة واقن صلاتنا لما أقبلها صومنا لما أقبلها حجنا لما أقبلها أساسك وتوحيد كيا يتيرركي أو صدح أفرتيئة أي تاجن أنت اسمك وبني الإسلام على خمس وأقول يا ده شيء إذا اسمك إسلام كانوا سلاس معين ترى وحيوقع تين مركا هدي شنطة تير إسلام كالله شيء جبا وبس وشنطة تير إسلام ومهم كي إسلامك لكن وحبات من الدجيست محد من مركا وحد من إسلامك حلوه تلاقيه نولشان عن نول نهي إن أنكو قابا يسنو ومال إسلام كان وفصح إن السيئي ويري أيها المسلمون قيب تاسن الدين الآن واتكسر عن كرتان قيب تاسن الدين تلوغب بهن ياهي مجرتو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نولش أنه أردنا وحال ربا إن لوهي بي يلسيو لوه قاميو لله رب العالمين مركا أفرت تيرسو إنو متاقن يكي أساس كاو التوحيد كسالك أفرت تير dhexdooda madul duleesho adiga maskaxda ku suurayso afar tiir oo taagan oo midna salka waa tiir walba tiirka u dhaxaysa dhexdiisa way duleeshaa oo hadaa inta laga soo galo way duleeshaa hadii inta laga soo galo way duleeshaa hadii xagga laga soo galo way duleeshaa hadii xagga laga soo galo way duleeshaa guri in la dhisal rabo marka meeshaas waxay u baahan tahay marka soo guri in la dhisal rabo waxay u baahan tahay bulkeeti in la geliyo oo tiirarkii dhexdooda ahayd in la cubo ama la awdo ayay u baahan tahay maxaa lagu awdaa marka waxaa lagu awdaa nidaam la yiraahdo al-anzimatul hayaa hab nololeedka loo noolaado si loo noolaan lahaa ayaa darbiyadii ah darbiyadii marka mesela aan soo qaadno midka ugu horeeyaan soo qaadno waxaa la yiraahdaa an-nidaam al-ijtimaaci ummad marka la rabo in la dhiso bulsho ahaan ayaa loo dhisaa bulsho burbursan waxba ku qaban mayso nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay masaajidka markuu dhisay hawsha uu qabtay waxaa kamid ahaa muxuu sameeyay bulshadii meesha deganeed al-mu'aakhatu bayna al-muhaajiriin wal-ansaar nidaam ijtimaaci loo sameeyay nidaamkaas ijtimaaciga marka muxuu ka dhigan yahay nidaam ijtimaaci muxuu ka dhigan yahay hadda mesela Soomaalida ijtimaaci macnaheedu waa social waa bulshadu siday u samaysan tahay ilaahayna sibu ugu talagalay dadkuna inay si kala ka dhigtaan ayay rabaan iimaanku wuxuu keenayaa marka war wixii adigu aad ka dhigan lahayd iska dayso tii ilaahay uu ka dhigay ogolow arrimaha bulshada ilaahay bulshada muxuu ugu talagalay soo ka dhigay ilaahay wuxuu bulshada waan idin abuuray yaa ayuhan naasu alaga bilaabay yaa ayuhan naasu markii la yiraahdo waa dadkoo dhan xooluhu kuma jiraan laakiin wixii bini aadam ah way ku jiraan cadaan iyo madow iyo carab iyo ajam yaa ayuhan naasu way ku jiraan inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waj'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرمها بلشة مركا بلشة ميل جوجتا ميي كلا سريسا ميي كلا في عينهن ما حيكون كلا في عينهن أضغوا حواليها إن أتلاذو حيكون كلا في عينهن سيؤكل حول بديهن ومبدأ سحاقة وقالوا وقالوا حيدهن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يعني أنا يا كحول بدن هل بيجاس مركب حي سميان بلشدو وحيكون كلا في عنتها حوله إلهي مركب حوله إنه كلا في عين منشين وإلهي يقول إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا حوله وحمة رايان وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى حوله ما وحمة رايان إلا من آمن وعمل صالحا مؤجي مركب هي قالوا حيدها يان waxaan ku kala badannahay tusaalahan reer qabiilkan uu badan yahay qabiilkan uu yar yahay haye kuwa way badan kuwa yar yihiin haye kuwa badani ma kuwa yar bay ka fiican yihiin hadii la yiraahdo ha saas ay uga fiican yihiin baabuurta oo wadada maraysa booyad shidaal wado weyn ayaa jirta taxina way jirtaa labadaas taarga ku dhigan midkana lambar ku dhigan midkana lambar ku dhigan waa labadaas baabuur ee kala weyn kan oo booyada ka war haduu yiraahdo maadaama aan taxi ka weynahay bareega ba ka qaban maayo haday waan dardarayada dhan korkan kaga istaaga oo korka kaga istaago war maxaa korka uga istaagtay maxaa waan ka fiicanahay oo sidoo ka fiicantahay maxaa soo ma ka weyni miisaanka noocaas ah miisaankii bulshada ku socon lahayd ma ah bulshada maxay marka ku kala fiican tahay qabiilkan iyo shacbigan waxa loogu talagalay sida taargadaas baabuurta lagu kala garto oo kali ah litaarafu bas inta Soomaalida mushkil waxa ay haysataa in litaarafu kor loo yiraahdo ma ogolo hoos bay ka wadaayaan marka hoos ka nina waxa uu oomay markaas uu gobiga intuu galay hoos bii kacbay markaas soo booday afku iska tirtiray waa soomanay kula intuu ka soomay hoos uu ka soo caabay umadaha fiiri oo bulshooyinka kale carabta kale waxa arkay Suudaan ay joognay midna wax ku baran jirnay baabuurta BL ka ah ee basaska dadku ay raacaan yu qabiilkiisa ku qoranay qabiilkiisa baabuurka waa caadiga iska socda yu qabiilkiisa ku qoranaya waxa mushkil ay ku haysana dadkii ma jirto yamantu waa saas oo kale dhakhtarka meeshiisu ku qoranaya reerka uu yahay mushkil kuma hayso laakiin Soomaaliga mushkilada haysata waxay tahay kor in litaarafu wariyata hado reerkaas aan ahay ma sha Allah waa reer asna qaano oo aan daris la amaan wax sunnahay waa la gartay ma la sheegayo hadda markaan qabiil sheegayno waxaan dhahaynaa niyow Soomaalidu reer hebel uma isdhaayaan reer maxay u dhahayn ma caadi u sheegaan kulli boos ay ka wadaan marka yani umur ijtimaaciyadu waxay tahay يعني waxa loogu talagalay shacbi iyo qabiil looguna talagalay litaarafu ma dhaafsiisno in la isku barto la isku aqoonsado iyo waa la isku xiriiriyaa oo fiiri ummad markay meel joogto unug inay isugu xiranto ay fiican tahay si yani hadii mesela masaajidka inta ku jirto way saaru buuxa yaa waxa la rabaa mesela qof walba in imaamad madaxiisa lagu xiro hadii muadinka iyo imaamku inta istaagaan dhahan meesha ii fadhiya madaxiinaan imaamada ku xiraynaa meeqa saac ku qaadan ila tahay kabo igu xira waxay safkan maanta dhan ma dhameyn karaan laakiin hadii la ka waran dhageysta qof walba fas maska adeysatid adu isku xir hadii lagu dhaho qof walba uu xiran kara ama imaamada adeysatid adu isku xir waxaan ku dhameyn karnaa daqiiqadan kulli isku wada xiri karnaa yani waa meel lagu soo hagaago marka unugaas oo ah litaarafudana laan fiir qabiilku wuxuu ka bilowdaa qoysku ka bilowday qoyska markii la aasaasayo wiil iyo gabar la isu mehriyaa ila moogtay dadku meesha ka soo bilowdeen waa in xididka laga soo bilaabo wiil iyo gabar is guursanay markii la guurkan la sameeynayo si sharci ah soo lagu ma asaaso oo ilaahay kitaabkiisa oo nikah xalaal ah zawajtuka wa ankahtuka isna qabilt soo ma dhaw wiilkan iyo gabadhan waxa la isugu meeriyay si sharci ah oo si diintu ay qabtay ah ilma ayay dhaleen ilmiha ilma kala sii dhalay way bateen xagee ka soo bilaabatay zawajtuka ka soo bilaabatay koox markay noqdaan intii marka isku abtir ah oo isku koox ah waxa la qaraabatihiina markii hatta nikah ka sala sameeyay khudbada nikah la akhriyo waxa kamid aayada lagu furfurto ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama waxa ilaahi qoyskan unugi koowaad baatay ogow waa laga sii horeeyaa awowga iyo awowgi kii uu sii dhalay iyo kaasi horeeyay carruurtii ay dhaleen wal arham rahim kaasi oo intii isku abtirka ah ama isla dhalatay diintu inay isxiriiriso silatu rahim hal ilaada silatu rahim hal ilaada huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran
إلهي بعدك وحو كدغي نسبا معناها كو اسكو ابترسدا او حاجه ويلش اما نمنكا waa lagu abtirsadaayo wasiirna waa gabdhaha ilaahay wuxuu dadkii ka sameeyay wiilal iyo gabdhaha waxa la wiilka xaqiisana nasaban waa abtirkii oo intii isku abtir ah waa walaalo wasiirna waa xidid oo waa gabdhaha ayaa soo jeeday xididka oo waa la kala guursadaa marka bulshada marka isku rakabay marka inna way isku abtirsadeen inna way kala guursadeen labaduna waa qaraabo oo nabi sallallahu alayhi wasallam masar oo intee la isu jiraa yaa wuxuu yiri masar ayaad furan doontaane qaraabani baa idinka dhaxaysay hal la xiriiriyo siiri baa idinka dhaxeeya xidid baa idinka dhaxeeya oo xididka xagu yahay maariyat alqibtiyya oo ibraahim dhashay ayaa masar ka soo jeeda sida uu nabigu ilaalinay yaani raximka iyo xididka marka yaani wixii wanaaga oo la tacaarafu waa loo golyahay laakiin markay noqoto meeshii la tacaarafu wax kale loo bedelo oo la yiraahdo ama in la isku laayo ama la isugu faano ama la isku dhibo ama la isku yaso ama saas la sameeyo ميزانك إلهي كاس معه ميزانك إلهي محويا مرك إلا يسكبر تكدبنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قفوا إلهي وقدوا وياي أيو كشرف بليا نبي عليه الصلاة والسلام عزم ذلك يا وكرامة بدن مركز مركور نبي يوسف أو نبي أو نبي السيد أو مركز ما حد يديني سؤالها مركز دم حوري إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني وحساس عيد كفر لي بدن قف كيدو كتقون مركز أمور اجتماعية نظام اجتماعي ومدينا مركز أنا من عند السنو يعني كل سن السفانفان isdilid isxaqirid ruux ka fiican ma jirto maalinta qiyaamo markii la tagana فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون عدس ويدين السماء هاي مركي غوري عندي سين الإسلام كا النظام الاجتماعي وحنا نقول اسمه يسق روح بدن أو عن لكلا سرينين أو ضدك أي سميهين أو قف بقول حصو كسبضي وحكون قناية نقطة قبيلك وحلا كسبضا معه وحلا شقيست معه قف أصو أنتو شقيست هير نقضي مجرو وإلهي الدونيتان كيسو هدي الدم اللي سقط يكون مرك ولا إذا قف كاس ولا الدلاء محل الدلاء خير كاس أيوه نشي هيه أو خير كاس إنه نشي من الدم ببا يا الدم بكده يا سميور تفلكاس من الذي خلقه يا أبو رقف كان يا خير كان كدلي الله فعل إلهي وسمي أبو رد إلهي وسمي هدي قف له عقابة كور أولي هذا دم بيجي سلحون نقضي إلهي محور خير كان كعقد دقي ور أنا محي قربت وياه أنا إسكمانا دقيقة إلهي بكر دقي ما إلهي يقول سمي الدم بي أو تدو قبصنا إنسان ما هي وما كده تدخل معضان كاسي كده يعني مرك يعني أمور اجتماعية مرك تاسكم ما توست أمور اجتماعية توستا دتكون إسكمديهم وحلوك الفيلمية إتهاي الله كعبسية نشعر الحور كن ابن من شئت عدي دونتها كل الشعدي ماشي دورك سوجد واكتسب أدبا لكن أدوك إذب يالو هذا أدوك إذب يالو توقف عن نقطه يغنيك محمودة عن النصب نصب كي واحد الشيخ شيء إذا بتنعاد يالتي أياك عقفلا هذا واحد وقت صحابك الجليل كي هذا خالد بن وليد خالد وصحابك الجليل سيف الله المصلولة خالد هي معك بن الوليد وليد كاسواكه وليد بن مغيرة واتقانان وليد بن مغيرة سورة النون والقلم وما يسطرون انت الصفاء اللي سد بدغي وليد بن مغيرة فلا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم نينك السلسلة يري أيا خالد علي مرة خالد إنه وليد بن مغيرة علي واحد يبغى يكوهيسو مجرت أساء إذا بكسبضي صحابي جليل أيون نغضي هي أبو جهل واتقانان فرعون هذه الأمة وأبو جهل ده وحود علي عكرمة هو قائد من قوات المسلمين هو جامياش مسلمين تكملها مرة عكرمة إنه أبو جهل علي واحد يكذب بس عكرمة مجرته هذا بكون ابن من شئت لكن واكتسب أدبا يغنيك محمودة عن النصب قفل بوحو شقيست أيويا هذيك لو حنقول سكو إلهي يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وحيرا معنى لو أمانه وحينا شقيسانين قبيل كما هذا شقيسانين حداد دونت إن لو أمانه واحد شقيسانين بارتين لو أمانه وتقدر أنت يجوك وحد واحد شقيست تعليم بامبرتي هو كلام قبصدي وحبان نقضي وان اسي هو قبصدو هو شاسد وحكوتاي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قفك عمل كيسو ديبو ديغو خير كاساني وحو ترميس نظام اجتماعي وينو اسمه هي دربي بيان سو ديسني marka nidaam ijtimaaci loo دربي labada tiir kala dhaxeeya salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka u dhaxeeyay yaan asna waxaan ka dhignay waxa la yiraahdaa an-nidaam al-thaqafi bulshada inay wax barataan raba aqoon in la yeesho la raba dhaqan in la sameeyo la raba oo diinteen islaamku waxa inoo dirto inaan nolosheena ku qaabayno oo wuxuu ilaahay inoo xalaaleeyeen aan xalaaleysano wuxuu inaga xaaraantinimeen aan ka xaraan inoo aado thaqafigiina waan dhisanay waxaan ku xigay nidaam leeyahay an-nidaam oo darbiga kala an-nidaam al-iqtisaadi dhaqaale in ummadaas dhaqaale loo sameeyo quraankeena aayada ugu dheer quraanka dhaqaale ka hadlaysa deynta iyo sida loo kala qaato iyo goorta la bixinayo
يا إن لقرو يا مرخاتين الله سمايو يعني مال وحي كسابسن وأحل الله البيع وحرم الربا يعني اقتصادك يعني ونولش ماشي كوكلا سعون لهيد dadka xoolaha xalaasha intay shaqaystaana waa la amaanay waxa la dhahaba ahlu duthuri bidarajaat al-ula wa an-na'im al-muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq yani maalka halkaas uu ku fiican yahay nidaamkaasna waa loo sameeyay hadii marka midalan la yiraahdo dhaqaalaha dad waxay dhahan dhaqaalaha yani riba inay isticmaalaan ay rabaan oo bangiyo waxay la shaqaysanayaan aan muslimiin ahayn markaas ay ribo isticmaalayaan ilaahina wuxuu wa ahalla Allahu al-bay'a وحرم الربا هدات كهذا شو ترى وربنجيدا الربا إسكداية حكوا لها هذا ماشي وعد لو جمع بحناه مساجد وعد لها ماشي بنجي أيها الضحايا إنك المسلمين هدانا هاي بنجي يا مساجدكو إسكوسيبا ينويين أو نبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت إلا إن مدين اتق الله في المسجد مساجدك بس إلهي وقع عصنا لمدين وحال اتق الله حيث ما كنت مالك استوت جوجت إلهي وقع عصنا بمعنى شريعة ديسي يدين ديسي ويكون صعنيسا هذا في الدولة ده اللي ينوسمي استعمارك ينوسمي وزارة وحال سمي وزارة أوقاف تيرمها الدين تاسد الصومالي ده مارت اسكو ما خلافان الصومالي وحسكو ده دجالان وزارة ده وحيقولها خير كان وين الله مقعدتين ربطان الرمها الدبدة الرمها جودها قاشان دقة مالية ده أفر تاسا وميمس الرمها الدين تنا عدي دنيا الله سير تاسا ما يشغلكم مالي ورسال وحكو دين تي أصل كأهيد الرأس مال كأهيد أيضا أي وح كتوسي لهاين وقت حضرنا مدة كله هبص يوم وزارة بحكي دجانة وحضر ما يسوي وزارة ده كله إن الدين تشقق كلهين وزارة أوقاف تقريبا الدين تا أي الدين تلقوه جاي وزارة ده عشان دجانا الميليتري الله تاس هي الميليتري ده هنا كورنيل الله ماشان حكم كورنيل كنا كورنيل كوحال ربا هدور ربا متوكنيو هدور ربا خمرة عبي هدور ربا صور ربا يجيلي وقتي أنا قفك إن هدي نك وانين دولة ذل يرادو يعني وحلوها يستين نك الدولة ده إنه الدين تشغل كلهين دين تنمال أي قفك كفص حظي وأي ترى أضو وزارة ده صالو ده صدح بلاد أساس عطا فصح بعد كجري تاي دين تا برنامج كجوك صدح بلاد كبعد القصة ونقو ما جرته وزارة ده عشان دقة قرآن كوكال وزارة ده عشان دقة وحوجها اللي إن تتكلم تببرو أو أي سكوت توسان آياتنا كتالا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حوق يا شالين حوق ومحوياه ألا إن القوة الرمي نبي حور القوة اللي وش يجايه وواحد مال لجارسيو هذا أدونكم حقوق كلا أتكاذي دولة أي جنتالا ذو مال فوق جاريان وعلى جعب صدا محي القوة اللي أي حق يجسد مركب وزارة قاشاني وحرم أنا كوش قيسو تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إنه كوش قيسال راب وزارة داريمة الدبدة وزارة الدبدة حكوش قينيسا dadka aan muslimka ahayn aan la tacaamulayno meeqay u kala baxaan kuwa waxay ku baxaan way kula dagaalayaan dagaal baa kala dhaxeeya kuwa dagaal kala dhaxeeyo waa la dagaale maxay yeelay aqli wuxuu keenaa ruux kula dagaalaya ani kula dagaali maay ma dhays mid aad goor waxa leey qamiisu qabiisay ana loo kale marka taxi uu qaatay meel waxa jirta marka taxi iska qaadanayaan markii uu ka dagaayo umbu وحوجا إسكسيني إلا المهشيو ما لنا ولا ليش أنت عن لفولين با أجل إذا ما قاد يقول جين ماشي عشان رباي نيكم حكيم مركب ماشي للهشين جري أو أنت عسيو مو للهشين مركب حول كل مال دوا صعطاية إن بعد إسكسين دون تا إسكراع وإسكراع مال يرمركب حوجا لو ذي يجوج وجوج إنه يصلح ويكون فلان تاي يوسو تاجي أو العكتية كي درول كي ويكون يرات أنت حول أنت وير تاي وحكو صدر markaas wariyay meel fog iibada soo qaadanay meeshan way dhowdahay inta way ku filan tahay dhaaf kii uu darawalka intuu albaabki iska furay oo inuu la dagaal rabaabo kii markuu arkay inuu soo fakanayo qamiis intuu iska siibay wana Allah baa ku yeelay marada cad ma muslim ugu malays wana marada cad ma muslim ugu malays marka waxa way meesha waxaan ka wadaa yaani haday kuwa wasaaradda arrimaha dibadda inoo soo fakanayaan oo dagaal inagu soo qaadayaan ay rabaan يعني ما وحلا أنا نجيس كداي ما وحلا ورا مسلم الله مرة عدنا مسلم كان كنا هاي وارد نجيس كعلينا سورة النساء آخر من القرآن محود هاي كوا إذا لا دجالة فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا كوا حاجة مركب كلها هاي أنا ده حد باره كلنا دجال مايو وحنا كوا درسن مايو عد كلا دجال سنة كوا دجال مايو كوا أسأيجا إسكتناف
waxba adigu ha u geysanin آية كلمة هذا كوا مثلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا يدهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم كوا سوى الاسكعلنايا أو فرصتك ولا قاعدة كوا عن كل الدجالين فما جعل الله لكم عليهم سبيلا كوا اسكعافة فرائس هذا وزارة أريمات دي بدو مركا إنه يحيرسوا يا إلى الدجالة يا إلى الدجالين يا إضافة يا إضافين يعني وزارة أريمات دي بدو كمان مغنو إنه الدين تي كنا قنته وزارة فصح كقبت مجرته وزارة مالية زكدي إني أرورسو dadka ay dhaqaalayso ribada iska ilaaliso hadii wasaaradii maaliyadda tiraado warramay adduunku isbedelay berigii hore saan ma aan jirin bangiyada Faransiiska iyo waxa aan la shaqeysana Talyaaniga iyo Hebelowga aan la shaqeysana ribay isticmaalaan annagana ribada dhax ka qaadanayna waa in la warmaya hayna gubina yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat riba waa lagu baabaa waa kada marka diinteenu waa diinta sidaas oo yaani haday tahay arrimo bulsho haday tahay thaqaafo haday tahay dhaqaale waa kaas nidaamka ugu dambeeya oo labadan tiir u dhaxeeya ونظام لها النظام السياسي نظام كمامولك مشكلة وحنا قاعد على موقتها ومدين الإسلام كه هجامين في عن أو ضدك هجامي سالواي هذا في رصيد ضدك في عناء وحجامين لها ويكم قين ساحبة وحكوا عيارايا كو هجانكي يسوع دين أنصابرن وح يعني دن ودنية أمة ما شاء كلاي وحكسي درن قارا وحلقة دادعي إن إسلامكو وحكم إماضو أو حكمه ما بالله بهنا وحكينا ما تغنى كريستانكا وحيقبان بريبا وحاس دقالة كنيسة يا ساينسك مدمر كي ودين كنيسة يا لقات كاذي وحيدا كنيسة دان مال عنو حرنو هلك هايسك جوبتو لكن نولشة ين صوفر كشنن هل كل يجوا حيس من دعاية دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وحو إلهي ليه أو كنيسة يا هلك عسنا هلك هسكجر وما لقيصر بقرك وحو ليه هنا بقرك إسكالها سوسو دوانين كوكل وحيدا دع السياسة للسياسيين سياسة مركز عن مركز مثلا كهالله والواقع عم بيشجر والأمة عن اسم كوا وحيدا هذا وذا بتاعه سياسة محوق هذا شان كل حقنا هذه ما آخر نوجه هذا الشيء آخر وحكورة سورة الدنيا كوريس قفك الدنيا وتوسطه قرآنكم حنا ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة محوق برودويس ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة محوق دويس قرآنكم حنا ده وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يعني الإسلام كان هو نظام ميستر أو نولشيا المهم نظام كاس الولاية النبي صلى الله عليه وسلم يخلفاء الراشدين كل واحد لقى سو جاري كتاب كاس قرآن كأنت تكلموا معموله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس تذكر تكوك على سعرتها الربع ما هي إنها شلفس كلا إنه يالون دهانو قفك حنوصنا لغطفا ومدحض انتي مدح اسكت دقانو دهان كتاب حق اسكت دقان مركو حنوصلو حقودها تدوي ده هالإيك أنا قرآن كيسارت هي قرآن بالوسارة هي كاله قرآن كل لغطفا قرآن لغطفا ما حقول جل ظالم وكتاب كلا يكون حكم واي ومن لم يحكم ما أنزله فأولئك هم الظالمون صماء ظالم صماء يا روح عليها هي كتفه بوه إنه لا يفلح الظالمون بوه إنه بقصودنا ورا سوق بقصودنا القرآن كان وحاله قلت لك لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قفك مركو نول يا رب إنه قرآنك ولا نول هذا أو كعمل فل أو كرقمه لكن مركو صاد أو سكرات والنقضة علماء يقول يا القرآن هاي صارته يعني سيلي سوق أساس ما معناه هذا القرآن كديدنا ما قرآن كسارة لكن وقال إنه لا يفلح الظالمون إن الظالم كنت فيسان كاسنا مركا وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة واحد كفايدة المجرته القرآن كان معه ساينس كما وقتها قال يا مسلم وكفايدة دختر داود وحصل الله استعماله ساسال لها دختر مسلم أنا وجرا دختر قال أنا وجرا محايل اسكو مادي برتين أو ساينس أو يعني قال يا مسلم وأنفع لكن كتاب القرآن كا معه سيد ساينس كو كلامه القرآن كو أنفعه أو كليه قف رميسن قف أن رميسنين القرآن كو حوتر مايو قف رميسن بالقرآن كو حوترايا مركا نظام كاسنا إسلام كاسويا هيا بني الإسلام على 5 هذا ضمينه لكن وحباينا قدمن وحنا قدمن إن عيد دربيدي ونصور دسني حاجة محان هنا أرمي برشة أو ينور دسن رقم كي أو ينور دسن رقالي أو ينور دسن مامل كي أو ينور دسن محاينا قدمن مركا دبولك وبناية ربع دو صوت داتو كر وفيدية بني الإسلام على 5 نودي كر محسيل يلا كر مسكف رانا مركا مقلاش اسكسو قشو توجو هسو قالو روب هسو داتو ما ينفعش وإلا دبول جوري محل قد دبولا وحال قد دبولا جوري دسن
haddii aan loo helin dad iskale oo gurigaas ilaashada waa laga duminaa si aan looga duminin marka waa inay gurigooda dabooshaan islaamka meesha ugu koraysa ee lagu daboolo waxa la yiraahdaa wadirwatu sinamihi islaamka kurskiis maxaa waaye wadirwatu sinamihi aljihad fi sabilillah waa lagu daboolay bas wax u soo dhawaan kara ma jirto kii isku day inuu soo dhawaadana quraanku wuxuu noo tilmaamay kuwa ma idin soo daandaansaday kuwa idin soo daandaansaday taad ku dhigtaan fasharrid bihim man khalfahum kuwa ka dambeeya hasi carreena leey bimaana kuwan al-isaayil ma sheegay kuwan meel la saara iyaga waxa leey kuwan sida aad u gashaan kuwa kale oo meesha aan joogin markay maqlaan ha dhaheen war nimankaas niman loo dhawaan kara ma aha kooxdu isku taagtay say u galeen ma aragtay war inaga cararsiya wax ku soo dhawaanay mal hada caalamkan waxay isticmaalaan istiraatiiji leeyahay al-hujum ahsan wasila lid-difaa ama ad-darb al-istibaqiyya wax leeyahay yani dawladii rabtay in laga cabsado ma sugto in meesheeda loogu imaado barnaamijkaas iska marinay marka islaamkii korkiina waa laga daboolay marka haye gudaha waxa laga yaabaa aboor inuu ku dhasho aboor marka qaarkood oo tiirarkii soo galay asna waxa looga ilaaliyaa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar muslimiinta kooda caasiga oo guriga hoos ka qodaay wara dib ka dhaaf adiga salaada tukaniyo guriga naga halaynin yani hoosna waxaan kaga shaqeynaa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar korna waxa way al-jihad fi sabilillah wal ilaalinaya darbiyadu inoo dhisayin bunya al-islam ala khamis waay marka dadka muuminiinta waxa la rabaa islaamkoodi wakaas marka waxa la maskaxdaada inuu ugu jiro islaamku waxa laga yaabaa marka hore inuu kuugu jiray shanta tiir oo taagan inuu guri ku ahaa dhici karta laakiin waxa rabaa inaad ogaato shanta ku taagan kaligood guri ma aha laakiin muhiim u yihiin dhinacyadoo dhan oo laga soo buuxiyo oo kor laga daboolay oo hoos laga waardeynaayo oo sidaas ah al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina kaas marka qofkii inugu diidaayo oo inugu cooloobayo uu inaga gardaray war maxaa naga rabtaan maxaa ma yasaas u dhahay ana islaamkeena saas haddaad islaam kale oo saas aan ahayn aad haysaan idinku soo sheego oo intaas aan ahayn oo la dhahayo waxa la rabaa islaam oo si doon laga yeelayo islaam oo aan lagu dhaqmaynin kitaabkiisi sidaas ma ahayn si la isku ogaa ضعف ayaa la yiraahdaa ummadda islaamka way daciiftay way jiratay laakiin haddana alxamdulillah hadda soo caafimaadaysa bari hore waxa jiri jiray masaajidada waxa buuxin jiray odayaal marka qabriga isu diyaarinaya haddana odayaal way joogaan oo dadaal badan oo taraawix markaan tukanayno dhalinyarada haday caajisaan ay ku daydaan oday hebel taagane war isku xishoonay taraawix tukale isna way jiraan laakiin inta badan dhalinyaro ayaa soo baxday dhalinyaradaasi marka waxay mustaqbal u muujinayaan fahamka islaamka ee saa u dhameystiran inay marka waxa loo baahan intay walaalo noqdaan maanta muslimiintu waa laga badan yahay dad kala ka badan laakiin bishaarada waxay tahay diinta ugu badan ee la soo gala maanta waxa la isku waafaqsan waa diinta islaamka marka diin la soo galaayo oo socota ilaahay diintan asaga ilaashana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun wayna guuleysanaysa biidnillah marka cidii ay ku guuleysan lahayd adaga kamid ah marka aad inta dib isugu noqoto baabuurka wuu socdaa boosajadu taagan yahay diintani way guuleysanaysaa in tansurullaha yansurkum aday sharaf ku tahay soo raac haddaad soo raaci wada tiraahdo ya akhi islaamkan iyo dhibkiisa iyo anay shaqo ku mari barnaamijkaas iska istaagaya adigu diin la'aan wax noqon maysid laakiin diintu adiga la'aanta waxbay noqonaysaa wa in tatawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum ilaahi subhanahu wa ta'ala ka bariyayna inuu diinta ina waafajiyo dhalinyaradan diinta jecelna ilaahay inuu diinta u fahamsiiyo xigmad iyo faham iyo cilmina ilaahay inuu siiyo ummadda islaamka meel ay joogtaba ilaahay inuu u kaalmeeyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhibaato ay ku jirtaa ilaahay dhibaatada inuu ka qaado kuwa gudaha ku dhibaataysan ilaahay dhibaatada inuu ka qaado kuwa banaanka u soo baxay oo caruurtoodii iyo tarbiyada ku rafaadsanna ilaahay inuu caruurta u toosiyo caruurta ilaahay inuu hagaajiyo kuwa dhalinyarada ah ee balwada iyo daroogada iyo xabsiyada iyo meelaha galana ilaahay inuu siraad al-mustaqimka ku soo aadiyo oo ilaahay uga dhigo waalidkood qurrat al-a'yun ayaan ilaahay uga baryeynaa ilaahay inuu muwaafaqa caam inuu soo dejiyo kelimadeena inuu mideeyo cuqdada iyo isnacaybka dhexdana ilaahay inuu inaga saaro ulfo iyo isjacayl ilaahay inuu soo dejiyo dad walaalo oo diinta islaamka walaalo ku oo diinta islaamka isla hirgeliya allah inaga dhigo aad iyo aad baad u mahadsantiin ilaahay idinka khayr iyo thawaab badan idinka siiyo inta aad dhageysateen iyo i'tikaafka masjidka aad baan idinku mahad celinayaa imaamka masjidka iyo jamaacada masjidka maamulkan ayaguna way mahadsan yihiin haddaan idinku dheereeyna raalli ahaada diinta islaamku ka sheekaynteeda iyo mawaadiicdeeda wax dhamaanay ma aha haddii la wado laakiin hadba intii la kari karo ayaa la isxusuusinaya wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ilaahay inuu anfaco diintana allah inoo qawiyeeyo innagana cizi iyo sharaf allah inoo soo celiyo waa mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh